soo dhawaada asxaabe waa tahay daawadayaal xubinteena daaqaad midowga Yurub maxaad ka ogtahay ma ogtahay in midowga Yurub laga dhawaaqay caasimadda Talyaaniga ee Roma 1957 laguna aasaasay heshiiskii loogu magac daray Treaty of Roma waqtigaas oo ay ku bahoobeen 6 wadan ee Belgium, France, Italy, Luxembourg iyo Netherlands iyo West Germany laguna magacaabi jiray suuqa dhaqaalaha ee Yurub ma ogtahay in wadankii ugu dambeeyay ee ka mid noqday midowga Yurub ahaa dalka Croatia oo ku biiray 1 July 2013 daawada ma ogtahay in tirada wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub ka hor intaan Ingiriisku ka bixin ahayd 28 dal ma ogtahay in qaab dhismeedka midowga Yurub ee lagu ballaariyay wadamo tiro badanna ay xubnaha kaga noqdeen ka dhashay heshiiskii Lisbon ee caasimadda dalka Portugal lagu gaadhay sanadkii 1993 daawada ma ogtahay in Britain tahay dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan midowga Yurub waxaana ka horeeyay oo kaliya dalka Jarmalka imika sawa ay ka baxday daawada ma ogtahay in aftidii ugu horeysay ee dadka Ingiriiska ugu codeeyay ka mid noqoshada midowga Yurub ahayd sanadkii 1975 waqtigaas oo 66% ay ogolaadeen ku biirista midowga Yurub ma ogtahay in boqortooyada Ingiriiska codsatay xubinimada midowga Yurub sanadkii 1960 laakiin uu laba jeer codka diidmada qeexan ku hor istaagay madaxweynihii hore ee Faransiiska Charles D 1963 iyo 1967 daawada ma ogtahay in Ingiriisku ku biiray midowga Yurub 1973 kadib markii madaxweynihii awoodda badnaa ee Faransiiska Charles de Gaulle laga dhimay awoodii uu ku lahaa ururka daawada ma ogtahay in Switzerland ay tahay wadanka kaliya Yurubta galbeed ee aan xubin ka ahayn ama aan ku jirin midowga Yurub inkastoo ay heshiisyo badan kala saxeexdeen 1995 kaas oo dhigaya in xuduudaha dalalka Yurub la isku furo fiidiyowga la aksarsiina shirkado. Assalaamu calaykum.